Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawade, afur wanaagsan iyo suxuur wanaagsan baan ku leeyahay meel kasta oo aad igala socoto. Halkan waxaan kuugu soo gudbin doonaa qaybtii saddexaad ee buugga Zaad iyo barnaamijkeenii Saahida Ramadaanka. qaybtan qoraagu waxa uu inoo sii wadaa ka sheekaynta hodankii jannada iyo 6 saxaabi ah ka mid ahaa 10ka jannada loogu bishaareeyay ee hodanka ahaa. saxaabiga labaad waa Uthman bin Affan, waxaa lagu naanaysi jiray Dinnuurayn oo ah kii labada nuur u saaxiibka ahaa. waxa uu guursaday ina Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam waa Ruqayye. markii ay ka dhimatayna waxa uu guursaday Kalthum oo iyana ka dhimatay. Nabiguna sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi haddii ay jiri lahayd mid saddexaad waan u guurin lahaa. Uthman weligiisana ma sujuudin, khamrina ma cabin xataa islaamka ka hor. waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee islaamka dartii u hijrooda ilaa iyo Xabasha. waxa uu ahaa mid xishood badan, hadal wanaagsan, aamusni badan. sanadka oo dhan waa uu soomi jiray ayaamo yar mooyaane. Caaisha bintu Abi Bakar Allah ka raali ahaadee waxay tidhi nebiga oo jiifa lugihiisuna ay faydan yihiin ayaa waxaa albaabka soo istaagay Abubakar. nebiga ayaa yidhi soo gal, isagoo sidiisii iskaga jiifa. haddana Cumar ayaa soo istaagay, isagana sidaas oo kale ayaa uu idmay inuu soo galo. Uthman ayaa isaguna yimid. nebigu sallallahu calayhi wasallam jiifka ayaa uu ka soo kacay oo wuu soo fadhiistay, maradiisiina wuu hagaajistay. markii ay sheekadii u dhammaatay ee ay baxeen ayaa Caaisha Allah ka raali ahaadee waxay leedahay waxaan weydiiyey nebiga sallallahu calayhi wasallam Abubakar iyo Cumar marka ay ku soo galeen ismaad bedelin ee maxaad jiifka uga soo kacday oo aad maradana u hagaajisatay markuu Uthman soo galay. waxa uu yidhi miyaanan ka xishoonayn qof ay malaa'igtu ka xishooto. waddamo badan ayaa uu ganacsi ugu safray, hantidiisuna way kobocday ilaa lagu tiriyo raggii ugu hodansanaa reer Bani Umaya iyo Quraysh oo dhan. dadyo kala duwan ayaa uu la soo dhaqmay oo waxa uu ka bartay waxaan cid kale oo qoomkiisa ahi ka aqoonin. waxa uu ahaa qani sharaf leh oo xikmad, ra'yi iyo fadliba ku dhex leh deegaankiisa. waxay ahayd maalintii ugu adkayd reer Madiina, baahi daran iyo gaajo ayaa jirtay. midhaha geeduhuna ma aysan bislaan. nebiguna sallallahu calayhi wasallam waxa uu amray in ciidan loo diyaariyo duulaankii Tabuuk. xaaladdu aad ayay u cakirnayd. qur-aankuna waxa uu ku tilmaamay maalmahaasi wakhtigii adkaa, saacatul cusra. ciidankaana waxaa taariikhda dhexdeeda uu ku caanbaxay magaca jeyshul cusra, ciidankii wakhtigii adkaa. nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa dhawaaqay, waxaana uu yidhi yaa diyaarinaya jeyshul cusra oo janno aan u ballan qaadaa. masjidkii oo dhan ayaa aamusay. waa kii qofka wakhtigan sidaa u adag ciidanka diyaarin karaa. ilaa uu Uthmaan hadlay, waxaana uu yidhi waxaan bixinayaa 100 geela oo saanadoodii wataa. haddii aynu qiyaasno wakhtigaas waxay u dhigmaysaa 100 gaadhi oo nooca dagaalka ah. waa qiimo intee la eg. markaas ayuu nebigu sallallahu calayhi wasallam u duceeyey oo ilaahay dembi dhaaf u weydiiyey. haddana mar labaad ayuu nebigu sallallahu calayhi wasallam yidhi yaa diyaarinaya ciidanka cusra oo janno aan u ballan qaadaa. Uthmaan ayaa mar kale istaagay oo yidhi waxaan bixinayaa 100 geela oo saanadoodii u dhammaystiran tahay. markaas ayuu nebigu sallallahu calayhi wasallam u duceeyey. haddana mar kale ayaa uu yidhi yaa diyaarinaya ciidanka cusra oo janno aan u ballan qaadaa. haddana Uthmaan ayaa istaagay oo yidhi waxaan bixinayaa 900 oo neef oo geela iyo 50 faras, rasuulka Ilaahayow. markaas ayaa uu nebigu sallallahu calayhi wasallam ku farxay oo yidhi Uthmaan waa ahlu janno. sidaasi oo kale Uthmaan nebigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu janno u ballan qaaday markii ay muslimiintu u soo hijroodeen Madiina ee ay biyo yaraantu heshay. markaas ayaa uu nebigu sallallahu calayhi wasallam yidhi yaa iibsanaya ceelka Rooma oo janno aan u ballan qaadaa. Uthmaan ayaa yidhi aniga, waxaana uu siistay 530,000 oo dirham. markaas ayaa uu muslimiinta u waqfay. maalin kale ayaa uu nebigu sallallahu calayhi wasallam yidhi yaa iibsanaya dhulka reer Hebel oo masaajidka u iibinaya oo aan janno u ballan qaadaa. markaas ayaa uu Uthmaan iibsaday oo uu masaajidka u waqfay. sidaasi oo kale ayuu Uthmaan mawaaqif badan hantidiisii ugu bixiyey. jannadana hal mar ka badan ayaa loogu bishaareeyey Allah ka raali ahaadee. markii uu amiirka mu'miniinta noqday waxa uu u fasaxay in ay hanti samaystaan muslimiintu oo ay arlada camiraan, qasriyana samaystaan. wakhtigiisii muslimiinta waxa uu ahaa badhaadhe. dowladdii ayaa fiday, magaalooyin badan ayaa la furtay. waxay gaadheen muslimiintu Khuraasaan, Armeniya, Karamaan, Sajistaan, Qubrus iyo qaybo badan oo ka mid ah Afrika. waxaana xilligaa la sameeyey ciidankii badeed ee ugu horreeyay ee ay muslimiintu yeeshaan. waxa uu ahaa hodankii jannada, Allah ka raali ahaadee. qaybteennani halkaas ayay inoogu joogtaa. intaan qaybta xigta ku kulmayno, sidaas iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.